Lambarka ugu horeeya ee marka aynu Qur'aanka akhrino inaga oo jiska koobaad ka bilaabayna inaga soo horbaxaya waa lambar 7. Qofku inta uu uurka hooyadii ku jiro 7 marxaladood ayuu maraa. Marka uu 7 bilood gaadhana abuurkiisu waa uu dhammaystirmaa oo muddada wixii ka hooseysa haddii uu dhasho ma noolaado. 7 cisho kadib dhalashadiisana waa loo wanqalaa. Dadyowga adduunku iyaga oo aan ka tashan ayay haddana isku wada raacsan yihiin isbuucu inuu 7 maalmood ka kooban yahay. Eebbaweynena 6 cisho markii uu kownka abuuray kadib maalintii 7aad waxa uu kor maray carshigiisa. Qiyaamuhu waxa uu dhacayaa maalinta 7aad ee isbuuca oo ah maalin Jimco ah. Eebbana waxa uu aadan abuuray maalinta 7aad ee isbuuca. Naartu waxa ay leedahay 7 albaab waxana ay ka kooban tahay 7 dhusin oo kala hooseeya. Maalinta qiyaamana waxa la keenayaa jahannamo oo lagu jiidayo 70,000 oo hoggaan. Samooyinku waxa ay ka kooban yihiin 7, dhulkuna 7, baduhuna 7, halka caalamkuna uu 7 qaaradood u kala qoqoban yahay. Jeegaantu waxa ay leedahay 7 midab. Macaadinta dhulka ku jiraana 7 nooc ayaa sal u ah. Dadka 7 ka mid ah ayaa uu guurkoodu xaraan ka yahay oo ah sida uu Eebba Qur'aankiisa ku sheegay. Cuntooyinka dadku cunaana waa 7 nooc oo ah kuwa uu iyagana Eebba Qur'aanka inoogu sheegay. Kabcada waxa lagu dawaafaa 7 jeer. Safa iyo Marwana 7 goor ayaa loo kala ordaa. Dhagxaanta shaydaanka lagu tuuraana markiiba waa 7 xabo. Halka salaada Iidana ragcadda koobaad 7 jeer la takbiirsado. Rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu ina amray caruurtu kolka ay 7 jir gaadhaan in salaada la faro. Sidoo kalena waxa uu ina amray in weelka uu aygu afka daro 7 jeer la meedho. Waxa kale oo uu rasuulku inoo sheegay qofka aroortii 7 xabo oo timir ah cuna in aan maalintaas sixir iyo suntoona waxba yeelin. 7 ayaa uu Eebba carshigiisa u hadhaynaya maalinta qiyaame. laa ilaaha illa allahu muxammadun rasuulullah. oo qofku haddii uu yidhaahdo goorta uu dhimanayana uu jannada galayo waxa ay ka kooban tahay 7 kelmadood. Cajaa'ibta dunida ee ilaa imika lala ashqaraarsan yahay waa 7. Reer caadna dabayshii halaagtay 7 cisho ayaa ay miranaysay. Shuhadadu 7 nooc ayay u qaybsamaan. Qofku marka uu sujuudana 7 xubnood ayuu dhulka dhigaa oo uu ka sujuudaa. Nebigu kolkii uu bukooday 7 wadaamood oo biyo ah ayuu amray in lagu shubo. Jajabka dhaxalka lagu qaybsadaana waa 7 nooc. Lambarka 7 waa tirada labaad ee ugu badan ee Qur'aanka lagu sheegay. Waxa uu ka horeysay lambar 1 oo lambar 7 24 jeer ayaa Qur'aanka lagu xusay. Xilligii Nabi Yuusuf waxa uu Eebba masaarida siiyay 7 sane oo barwaaqo ah isagoo oo uga dambeysiyay 7 sane oo abaar ah. Ummadda Nabi Maxamed 70,000 oo ka mid ah ayaa jannada bilaa xisaab ku galaya. Al-Qiyaama waxay ka kooban tahay 7 xaraf waxaana yawmal qiyaama ay Qur'aanka ku soo aroortay 70 jeer. Kitaabka At-Tawraat 7 xaraf ayuu ka kooban yahay. Al-Injiil waa la mid. Suxuf Muusa iyo Al-Qur'aan labadaasna waxay ka kooban yihiin min 7 xaraf. Insaan 7 xaraf ayuu ka kooban yahay. Shaydaanna 7 xaraf ayuu isna ka kooban yahay. Kolkii ay reer Banu Israa'iil dibiga caabudeen waxa uu Muuse ka soo kaxeeyay 70 oday oo ka mid ah si ay Eebba ula soo hadlaan. Salaada jamca lagu oogaa waxa ay ka khayr badan tahay tan kalilayoonka ah 27 xasano. Al-Baqara oo ah suuradda ugu horeysa ee lambar 7 lagu sheegay iyo Amma oo ah suuradda ugu dambaysa tira ahaan ee lambar 7 lagu sheegay waxa u dhaxeeya 7 iyo 70 suuradood. Culimada intooda badani waxay isku raacsan yihiin habeenka Laylatul Qadrigu inuu yahay habeenka 7aad ee 10ka u dambeeya bisha Ramadaan amaba habeenka 27aad ee bisha Ramadaan. Suuratu Qadri ama Wal-Layl waxay ka kooban tahay 30 kelmadood oo u dhiganta 30ka bisha Ramadaan. Kelmadda 17aad ee suuradaasina waa hiya ama salaamun hiya oo micno weyn muujinaysa. Jumladda Laylatul Qadri waxa ay ka kooban tahay 9 xaraf waxaana ay isla suuradda ku soo noqnoqotay 3 jeer. Haddaba haddii aynu 9 ku dhufanno 3 waxa inoo soo baxaya 27. aayad Qur'aanka ah waa kii Eebba ku yidhi walaqad aataynaaka 7 min al-mathani wal-Qur'aan al-cadiim. waxa ay culimmadu isku raaceen 7da la sheegayaa in ay tahay suuradda Alxamdu oo iyadu 7 aayadood ka kooban. Inta aynaan Alxamdu u iman bal aayadan qudheeda aynu u fiirsanno. Masaani waxa ay ka kooban tahay 7 xaraf. Haddaba masaaniya 2 jeer ayay Qur'aanka ku soo aroortay markan oo ay xujir ku jirto iyo kol kale oo ay suuratu Sumar
ku soo aroortay. Haddaba mar haddii ay kelmaddaasi 7 xaraf ay ka kooban tahay 2 jeerna ay quraanka ku soo aroortay, bal aynu 7 ku dhufanno, waxa inoo soo baxay 14. Waxaa cajiib ah in suuradda Xijir uu jiska 14aad ee quraanku uu ka bilowmo. Isla suuraddan Xijir waxa ka horeeya 14 suuradood. haddaba waxaa jira 2 suuradood oo aayadahoodu ay min 7 aayadood yihiin. mid waa suuradda Alxamdu, talabaadina waa suuradda Maacuun ama sida ay Soomaalidu u taqaano Ara'ayta. haddaba isla suuraddan Ara'ayta marka sida uu quraanku u nidaamsan yahay loo eego waa suuradda 107. marka aynu isla suuraddan joognana waxaynu arkaynaa in 7 suuradood oo kali ah quraanka ay ka hadheen. daawade maadaama oo Ara'ayti suuradda 107 tahay, bal 7 suuradood ee hadhayna lambaradooda aynu isku geyno. mar hadday iyadu tahay suuradda 107, suuradaha inoo hadhay waa suuradda 108, 109, 110, 111, 112, 113 iyo 114. intaasoo suuradood ama 7 suuradood marka la isku geeyana waxa ay inoo soo baxayaan 777. daawade mar kale arrintan aynu dhinac kale ka istaagno. suuradaha quraanku waa 114 suuradood. haddaba aynu soo qaadanno inta lambarka 7 ku jirta, yacni marka suuradaha la yiraahdo 1, 2, 3, bal inta suuradood ee lambarka 7 tira ahaan ku kulma aynu soo qaadanno. waxaynu ka bilaabanaynaa suuradda Alxamdu, waxayna ugu soo xigaysaa suuradda Acraaf oo ah lambar 7. waxayna ugu xigtaa Isra oo suuradda 17aad, Namli oo 27aad, Saafaad 30, Muxamed 40, Xadiid 50 ilaa laga gaadhayo suuradda Ara'ayta oo iyadu ah 107. haddaba suuradahan aynu soo tilmaamnay imika haddii aayadahooda ama inta aayadood ay yihiin haddii la isku geeyo waxa inoo soo baxaya 777 oo ahaa tiradii isla mar hore inoo soo baxday. dhinac kale aynu imikana daawade uga wareegno. haddii aynu 114 suuradood ee quraanku ka kooban yahay aynu 2 u qaybino, waxaa markiiba inoo soo baxaysa tirada 750 oo ah suuradda Xadiid. suuradda Xadiid waxa ay tahay suuradda 7aad way ka muuqataa shaxdii aynu in yar ka hor soo sheegnay. suuradda Xadiid waxa ay ugu dambaysaa jiska 27aad. jiska 27aadna waxa uu ka kooban yahay 7 suuradood oo kaliya. haddaba waxa shaxankan yar ee kooban inooga muuqda 7 suuradood ee uu ka kooban yahay jiska 27aad. waxaa halkan kale inoogu xiga lambarada ay suuradahaasi leeyihiin, yacni 114 suuradood way kala horeeyaan oo waxa ay sitaan suuradda 1, suuradda 2, suuradda 3. marka lambarada halkan inooga muuqanaya waa lambarada ay suuradahaasi sitaan. tusaale ahaan suuradda 51aad waa Daariyaad, suuradda 52aad waa Duur ilaa laga gaadhayo suuradda Xadiid oo iyadu 57 ah. qaybta midig ee shaxankana waxaa inooga muuqda suurad kasta aayadaha ay ka kooban tahay. bal hadda markaynu isku geyno suuradaha lambaradooda waxaa xaggan hoose inooga soo baxaya 387. markaynu aayadaha ay ka kooban yihiin isku geynana waxaa inoo soo baxaya 399. labadaa tiro markaynu isku geyno waxaa dib inoogu soo noqonaya lambarkii 777. daawade aayadaha quraanku waxay ka kooban yihiin 6236 aayadood. haddii aynu 6236 aynu 2 u qaybino waxay inoo soo baxaysaa aayadaha quraanka kala badhaa in ay tahay aayadda 3118. waxaana ay aayadda quraanka kala badhaa noqonaysaa aayadda ku jirta suuradda Shucara ee lambarkeedu uu yahay 186. haddaba isla suuraddan Shucara waxa ku jirta aayad 7 jeer ku soo noqnoqotay oo ah wa inna rabbaka lahuwal aziizul hakiim. aayaddani mar waxa ay tahay aayadda 9aad ee suuradda Shucara, mar waa aayadda 68aad, marna waa 104, mar waa 122, mar waa 140, kol waa 159. marka ugu dambaysana waxa ay tahay aayadda 175aad. haddii aynu tirada kor ka muuqata isku geyno tiradii goorahan bay nagu soo noqnoqonaysay ee 777. diinteenna oo kaliya lambarka 7 qiimo weyn lama laha. ee diimihii hore iyo waliba ilbaxnimooyinkii hore lambarka 7 waxa uu ahaa mid ay aad u qiimeeyaan. tusaale ahaan ciidankii Abraha ee Maka ku soo duulay 7 maroodi ayaa horkacayay.
7 maroodi ayaa ilaaliya macbadka ilaaha muqaddaska ah ee Buddhismka. Buddha oo ahaa ninka diintaas aasaasayna waxa ay sheegaan markii uu dhashay inuu 7 tallaabo qaaday, sidoo kalena 7 sano uu xaqa iyo xaqiiqada raadinayay ilaa uu aakhirkii helay ubaxa lotus oo diintooda muqaddaska ah, kaas oo ay Buddhismku u yaqaanaan amaba ay ka aaminsan yihiin astaan rajada iyo ifafaalaha san u taagan. Daawade, haddii aad si baadhid lambar 7 waxa aad arki doontaa cajaa'ib fara badan oo ku sugan gaar ahaan Quraanka Kariimka ah. Ma waxa ay kula tahay in ay si kedis ah isugu beegbeegmeen, mise waxa aad aaminsan tahay in ay ka mid yihiin xigmadaha faraha badan leh ee Ilaahay iyo sidoo kalena sirihiisa iyo cilmiyadiisa badan ee weli aanu aadmigu fahmin?